هارون ومحسنتهاي halkan waxaan u imid anigoo matalaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inaan ka qayb galo shirkii wadamada Afrika oo looga hadlayay sidii qaaradda Afrika dib loogu nidaamin lahaa looga hadlayay sidii hore loogu marin lahaa Soomaaliyana waxay ku yeeratay door fiican adduunyadu waxay aaminsan tahay Soomaaliya inay dhaqaaqday hore u socoto shaqayso dunida ku soo laabatay rajaad u wanaagsan ayaa laga qabaa dalka Soomaaliya madaxda caalamkeed kula kulantay Addis Ababa haddii wada hadallo gaara ama heshiisyo gaar ah aad yeelateen maxaad ka soo qaadeen maxaa isla meel dhigteen horta waxaan la kulmay madax aad u badan maanta kaliya waxaan la kulmay 9 madaxweynayaal ama ra'iisul wasaarayaal waan kulligood kala hadlay danaha ummadda Soomaaliyeed iyo sida loo wada shaqeyn lahaa qof walba oo aan la kulmay waxa uu muujinayaa yididiilo Soomaaliya in dawladeeda iyo shacabkeeda ay soo dhawaatay Soomaaliya inay dadkeeda u soo jeesteen in dalka dib loo dhiso Soomaaliya in dib loola shaqeysto waxa kale ay aaminsan yihiin laga soo bilaabo Cameroon iyo Namibia lagu daro Kenya iyo Ethiopia inta u dhaxaysa Afrikaanta dadka aan la kulmay waxay aaminsan yihiin rajada ugu wanaagsaneed inay leedahay ummadda Soomaaliyeed iyadoo runtii aanay u hambalyeeyeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha laakiin u hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed waxaan la kulanay marka madax kala duwan oo qolo walbaba aan la galnay wada hadallo wax ku ool ah ummadda Soomaaliyeed waxaad iga warantaa marka maxaabiistan la sii daayay dawladda Itoobiya sii daysay waa imise tiradooda maxaabiistan maxay ku xukunayeen xaaladooda bal nooga waran maxaabiistan waa maxaabiis aan wada hadalkooda bilownay markii hore Itoobiya nimid aan soo dhameystirnay hadda markaan ku soo laabanay tiradoodu waa 120 waa dad Soomaaliyeed oo lagu haysto dambiye kala duwan waxaan ka codsanay dawladda Itoobiya in maxaabiistaas lagu soo wareejiyo gacanta dawladda Soomaaliya waraaqihii ugu dambeeyay oo kala saxiixanaynay ayaa hadda maanta iyo bari la dhameystiri doonaa kadib waxaan u diri doonaa hadii Ilaahay yiraahdo wafti magaalada ay ku xiran yihiin badankood oo ah Jigjiga waftigaasi waxay soo qaadi doonaan maxaabiistaas waxaan markaa yeeli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo in dadkaas anagu aan eegno u kala dirno meelihii ka yimaadeen hubsano taariikhdooda sida ay ahayd laakiin waa dhab heshiiskaas oo ku soo heshiinay waqti bay nagu qaadatay waan ugu hambaleynayaa ummadda Soomaaliyeed taasi waa taas waxa kale maanta shir la galay ra'iisul wasaaraha Mauritius waxa ku xiran maxaabiis Soomaaliyeed waxaan ku heshiinay inaan kala saxiixano heshiiskaas oo ah inaan maxaabiis isweydaarsan doono markaan heshiiskaas dhameystirno una dirno wasiiradeena mid kamid ah ayaa iyagana nala ku soo wareejin doonaa maxaabiista Mauritius naga xiran hadii Ilaahay yiraahdo laakiin waqti bay qaadan doontaa sidoo kale waxaan arrimaha maxaabiista kala hadlay maantay madaxweyne ku-xigeenka Seychelles oo aan isagana 15 sida uu sheegay maxbuus qiyaastii oo ku xiran wadankooda iyagana waxay iga codsadeen inaan soo diro wasiirada mid kamid ah oo aan kala saxiixano heshiiskaas oo ah in aan isweydaarsan karno maxaabiista iyo inaan ka wada shaqeyno kalluumaysiga sharci darrada ah ee looga kalluumaysto wadamadeena iyo sida aan meel uga soo wada wajeysan lahayn arrimaha labada wadan ba aafeeyay waayadii hore oo ahaa burcadbadeedka macnaheedu waxay tahay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku xiran meelo kala duwan oo aan ognahay sidaas daraadeed waxaan yeeli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo inaan u saarno guddi dabagala dadka ku xiran meelaha kala duwan waxa kaloon hadii Ilaahay yiraahdo xukuumadda dadka ku jira iyo madaxda qarankaba aan ku xasuusin doonaa in meel walba ay tagaan ay ilgaar u yeeshaan arrimaha dadka maxaabiista Soomaaliyeed way si kooban maxaabiista Itoobiya ku xiran ma 120 kaliya Soomaali ku xiran wadanka mise way ka badan yihiin way ka badan yihiin waa tan waxa weeyaan wajigi koowaad waxaan la yeelan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo wada hadal inta ka sii hufan oo waan sii wadi doonaa wada hadalka inta qof Soomaaliyeed uu meesha ku xiran yahay waa inaad ogaataa Haaruun oo dalkan oo Soomaaliyeed waa dal dhibaato badan soo maray waxaan u baahanahay maalin walba inaan shaqeyno si dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan isku dayno inaan u badbaadino hadda waxa muuqatay diila ah adduunyadu inay aaminsan yihiin in dawladda hadda jirta ay tahay dawlad nagaatay oo shacabkeeda niyadooda kor u soo qaaday oo ay aaminsan yihiin in
hadafkeedu dheer yahay heshiisyada lala geli karana ay ku qotomi karaan hadaf dheer. xiriirkiina dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya xiriirku waa sidee? xiriirka dowladda Itoobiya dowladda Soomaaliya waa xiriir fiican, xiriir ku salaysan derisnimo, ku salaysan adduunyada inay isbedeshay, ku salaysan inay fahamsan yihiin in Soomaaliya iyo Itoobiya isu baahan tahay, ku salaysan in Itoobiya ay degan tahay in ku dhow 7 milyan iyo bar Soomaali ah, waxay yiraahdeen waa 7.3, in Itoobiya ay tahay in ka badan 100 milyan oo dad ah, in suuqa ugu weyn oo noogu dhow ay yihiin iyaga laftooda. waxaan isla garanay inay iyagana u wanaagsan tahay annagana noo wanaagsan tahay inaan ku noolaano daris wanaag, inaan ka wada shaqeyno nabadgelyada, inaan ka wada shaqeyno kobcinta dhaqaalaha, iyo inay nagala shaqeeyaan in Soomaaliya ay dib ugu soo laabato saxada adduunka, iyagoo fahamsan in xukuumadda iyo madaxweynuhuba ay fursad weyn leeyihiin, kalsooni buuxdana shacabkooda uu ku qabo. way gudaha haddaan soo laabano siyaasadda Soomaaliya iyo xaaladda Soomaaliya, dhibaatooyin culus oo dhaqaale iyo nololeed baa ka taagan gobolada dhexe, beledweyne, Gurceel, Caabudwaaq, magaalooyin fara badan. dadkii way diideen inay qaataan lacagtii Soomaalida, waxay dhaheen lacag been abuur ayaa suuqa lasoo geliyay, lama qaadanayo, doolar keliya ayaan wax ku gadanaa. maciishadii way qaadiyeen, doolarkii 4 milyan buu ku dhow yahay. dowladdu ma la socotaa? maxaa laga qabanaya? dowladdu way la socotaa Haaruun, waana ognahay waxaanina waa dhibaato soo jireen ah oo waqti fog soo jirtay. waxaan u baahannahay marka tallaabooyinka aan qaadayna inaan ka fiirsano. tallaabooyinka ugu horeeya oo aan qaadayna waxa ay tahay inta haddana soo gasho inaan u maareyno si wanaagsan oo uu suuqu ku kalsoonaan karo, inaan kobcinno dhaqaalaha, in shacabka Soomaaliyeed ay gartaan inay muhiim tahay in canshuur la bixiyo, in aan ka fikirno markaa intaa ka sokow sida aan ku yeela lahayn dhaqaale u adeega ummadda Soomaaliyeed oo dhan. waxyaabaha noogu jira talada waxaa ka mid ah inaan isu keenno guddi khubaro ah oo ka kala yimid adduunyada dad Soomaaliyeed ay ku jiraan oo nagala taliya arrimahaas. dowladda Soomaaliyana waxay ka leedahay siyaasad ah sidii wax looga qaban lahaa dhaqaalaha, abaaraha iyo waxyaabahan dalka dilooday. laakiin waxaan rabnaa inaan nidaamka hagaajino marka hore, nidaamkoo hagaajisan inaan qaadno tallaabooyinka ku aadan sidii wax looga qaban lahaa arrimaha sicir-bararka oo ka hadashay. lacagta been abuurka maxaa lagu xalinaya? dalka dowlad baa ka jirta, waa la dabagelayaa, ma loo dul qaadan doono wax been abuur ah in lagu aafeeyo ummadda Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa wax walba oo sidaas oo ay aaminsan yihiin inay khalad yihiin ama dhibaato u keenayaan inay soo ogeysiiyaan dowladda iyo xukuumadda Soomaaliya. arrinta ku saabsan canshuur bixinta shirkadaha waaweyn oo kale, ganacsiga, kuwa xawlaadaha, kuwa telefoonada, cid walba ma ka qaadaa dowladdu mise shirkada aan laga qaadin baa jirta? sidii dowladihii idinka horreeyay shirkadaha waaweyn lagama qaadi jirin canshuur, marka ma ka qaadaan idinku canshuur? maya, sideedaba waddanka canshuurta laga qaado magaalada Muqdisho aad ayay u yar tahay. inta badan canshuurtu waxay naga soo gashaa aeroboortka Muqdisho iyo dekedda Muqdisho inteeda badan. canshuurta waddanka laga qaado aad ayay u yar tahay, waana garan karaa. dowlad la-aantu waxay keentay dhaqan ah inuu jiro is-aamin darro ahaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. waxaa hadda aan ka shaqaynaa kow, dowladda inaan aamin ka dhigno, dowladda in lala xisaabtami karo, dowladda shilin walboo soo gala in shacabka Soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay la xisaabtamaan 1 2 3 4 5 si iyagana ay kalsooni u gasho. sidoo kale amni xumo ayaa dalka ka jirta, amnigana waxaan bilaabnay inaan wax ka qabanno. waxaan soo gaari doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waqti aan fogeyn in canshuurta la kordhiyo. laakiin waxaa muhiim ah Haaruunow, aniga iyo adiga waxaa naga wada dhexeeya dalka. aniga iyo adiga waxaan u adeegnaa ummadda Soomaaliyeed, qofka ganacsatada, qofka dukaanka iyo qofka shacabka, qof waliba waa inuu ogaadaa inaan kulligeen u wada adeegno ummadda Soomaaliyeed. sidaas daraaddeed dowladdu waa aniga iyo adiga, waa shacabka Soomaaliyeed. waa inuu qof walba dowladdiisa aaminaa. haddii uu isagu tallaabo qaado dowladda lagu aamini karo oo canshuurta lagu bixiyo, annaga isku filnaan doona. markaan isku filnaano ayaa qarannimadeena soo noqonaysaa. marka waan xasuusinayaa qof walboo Soomaaliyeed inuu ogaado dowladdu inay kulligeen tahay. marka goormaa laga rabaa shirkadahan waaweyn ee Soomaalida, kuwa telefoonada oo kale iyo kuwa waaweyn la midka ah, inay goormaad u sheegaysaa inay bilaabaan bixinta canshuurta dowladda? goormaad diyaar noqonaysaan inaad canshuur ka qaadataan?
shirkadaha isgaarsiinta waxay nagala shaqeeyeen in aan ama waxaan kala shaqeynaa in ay la shaqeeyaan dawladda sida aan dadka kaloo dhanba ula shaqeyno waqti bay qaadanaysaa sharciyo ayaa loo baahan yahay waddankan in la meel mariyo wayna ku dadaaleysaa dawladdu baarlamaanka marka la furo waxaan horkeeni doonaa sharciyo kala duwan oo lagu xasilin doono arrimo badan ay arrimahaasi ka mid yihiin si nidaam iyo kala dambeyn waxaana ay aasaas ugu ahaadaan haddii ilaah yidhaahdo way naga go-an tahay laakiin tallaabo walba oo aan qaadayno waa inay ahaataa tallaabo la hubsaday lugta meesha la dhigaana ay tahay meel shacabka soomaaliyeed wanaag u horseedi doonta garoonka oo kale ayaa soo qaaday iyo dekada inuu dakhli kasoo gala dawladda laakiin garoonka waxaa jooga shirkado fara badan oo ajaaniba iyo shaqaalo badan oo ajaaniba u shaqeeya kuwa canshuur ma ka qaadaan maya laakiin waan bilaabaynaa iyagana in laga qaado cabinetku ka shiray golaha wasiiradu go-aan baa laga soo saaray guddi baa loo saaray shaqadu way socotaa way imaan doontaa waxaa imaan doonta wakti cid walba loo keeno warqad oo canshuur ku bixiyo lama gaarin weli degdegtuna waa muhiim haddana waxaa muhiima inaan hubsano qaabkaan wax u qaadayno waxaa aad madaxweynaha iyo aniga noogu muhiima inaan dhisno kalsoonida nagala dhexaysa shacabka soomaaliyeed kalsoonida nagala dhexaysa ganacsatada kalsoonida ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradu inay shacabka soomaaliyeed u shaqeeyaan kalsoonida ah inaan nahay adeegayaal ilaaliya amaanadooda kalsoonidaasi way socotaa tallaabooyin baan qaadnay hadda waxaan rajaynayaa haddii ilaah yidhaahdo waktiyada soo socdana inay shacabka soomaaliyeed arki doonaan iyadoo canshuurta la bixinayo kor u kacdo waa gartay inta aan ka ahayn ciidamada nabad ilaalinta ee amisom shaqaalahan kale ajaanibta